السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا ولا مسلمين تمام والبدوني ذيك جوكتان وولالكين مهنا دبي حاشية وجعلستين وإذا لو ذاقوا قصير ولا لا يالله إذا كعصن لها قصة مركع دعوة كدي بنات جارسيسو ولا لها كلا سلوا عبرقاتو قصة جزاك الله خيرا ولا الله يكسر بيج كمهنا دبي سبسكرايب صار يوتيوب شانل كمهنا هبي أوفيشيال جزاكم الله خيرا أنا ما المحكمة إذا ولا ليال يركن إذين مقدادو جدا وحق على هوسبيتال وحنا كسو حظي دبو waxaa soo raacadeysatay kalkaaliso si ay dabada uga qaato. waxaa kor ka arkay nin agagaarkii ka dhawaa, wuxuuna ku yiri muxuu ka haystaa. dabadii ayay sheegatay. markaasuu sii wiilkii wuxuu weydiiyey walaalayaal maxaa kuu kalif inaa xaddo. wiilkii yaraa walaalayaal wuxuu ku jawaabay baaba dabada muctaad baan u ah buu ku yiri. ninkii wuxuu ku yiri hoo lacagtan dabada keen. sidaas ayuuna dabadii uga iibiyey walaalayaal. wuxuuna u dalbay walaalayaal dabadii bacuu ku rido. الله أكبر وأبا قلبي وناكسن ما شاء الله. آد بين وناكسن تا ولا ريال إن ليس عابيو قفل بقفك كلا مسلم تإنه عابي آد بي وناكسن تا ولا ريال بل فيري أباهن ولا ويلك وحو وياه ملهن لكن قلبي وناك وناقو سمينا ولا ريال أيو عابي. الله أكبر. دور سنة كدب ولا ريال كبرن إذين موقت وحد على أبيه عاونا يويلكي يرى أيضا وحي عابسا أبيه هذا wuxuuna maqaaxi ku leeyahay magaalada meel ka mid ah. gabadhii waxa uu yimid wiil weydiinayay waxa uu cuno ama sidaad u taqaan tuugsanayay. aabihii wuxuu bac uga soo riday cunto wuuna siiyay. aabahan waa aaba aad iyo aad u wanaagsan walaalayaal, laakiin maxaa ku dhacay walaalayaal? aabihii wanaagsanaa waxaa ku soo booday xanuun. gabadhana way dareemaysaa aabaheeda in la hayo. sida idiin muuqatana walaalayaal aabihii wuu dhacay, wuxuuna la dhacay xanuun hayo awgeed. gabadhii aad bay u naxday wayna qeylisay. ambalaas baa loo yeeray walaalayaal, waxaana la geeyey aabihii hosbitaalka. wuxuuna galay koomo walaalayaal. allahu akbar. gabadhii aad iyo aad bay u murugsan tahay. aabaheeda caafimaadkiisa way ka fikiraysaa, dhanka qarashaadkana way ka fikiraysaa walaalayaal. maxaa yeelay aabahan aad u jeedaan wuxuu ka ganacsanayay maqaayad yar ama maqaaxi yar walaalayaal. gabadhii waxay ka fikiraysaa marka qarashka soo bixi doono siday u dhiibi doonto walaalayaal. dhakhtarkii wuxuu ku yiri aabahaaga aad buu u caafimaad qabaa, caafimaadkiisana waa okay hadirtaan, laakiin waxaa u tagtaa xafiiskaas waxaadna ka soo qaadataa buu ku yiri walaalayaal warqadaas walaalayaal waxaa ku qoran qarashaadkii ku baxay aabaheeda. markii warqadii loo dhiibo walaalayaal sida idiin muuqataba way eegtay, kadibna lacagtii ayay la yaabtay siday u tiro badan tahay walaalayaal. way ooysay walaalayaal, wayna isciishay. waxayna istiri qarashaadkan faraha badan halkay ka soo gali doonaan, halkayna ka keeni doontaa. gabadhii waxay aad ula murugsan tahay qarashaadkii. meelay wax ka keento malaha. waqti walba, saacad walba, maalin waliba waxay la ooysaa oo la murugtaa waa qarashaadka walaalayaal. laakiin waxay go'aansatay walaalayaal inay beec geliso ee iibiso maqaaxida aabaheeda uu lahaa ama maqaayadii aabihii uu lahaa. maxaa yeelay walaalayaal meel kale wax ka keento ma lahan. laakiin albaabkii maqaaxidii ama maqaayadii ayaa waxaa ka soo galay nin taajir ah. ila maqaayadii waxay ku dhajisay waa beec. waxaa soo galay nin, markaasuu ku yiri hoo jeegan walaashay. markaasay gabadhii jeegii eegtay, waxayna ku aragtay lacagtii ay u baahneed oo ah $200,000 Mareykanka walaal. gabadhii aad iyo aad bay u faraxday. wax su'aala ileen kama gaarto. maxaa yeelay walaal aad iyo aad bay u faraxsan tahay sababtoo ah waxay heshay lacagtii ay aabaheeda isbitaalkii uga soo saari lahayd. allahu akbar. ilaahay ayaa meel uga soo cabiidiyey walaalayaal. ninkan aad u jeedaan walaalayaal waa ninkii bixiyey qarashaadkii aaba lagu daweeyey gabadha, yacni aabaheeda lagu daweeyey. wuxuu yimid walaalayaal hosbitaalkii ku jiray ninkii, yacni gabadh aabaheeda. markaasuu ninkii ku yiri yaa waay ninkan gabadheediyey. markaasay ku tiri aabe ninkan waa ninkii bixiyey qarashaadkii adiga lagugu daweeyey. ayadoo hadalkii wado ayuu wuxuu ku yiri bal aamus, anigaa isku sheegayey. ninkii wuxuu ku yiri haa waa aniga ninkii qarashaadka bixiyey. aabihii ayaa wuxuu ku yiri maxaa kuu kalifay inaad lacagtaasoo dhan iga bixiso? waa lacag aad u fara badan. ninka wuxuu ku jawaabay waad mudan tahay, maxaa yeelay adiguba
mar ayaad garab isiisay. Aabbihii wuu yaabay, wuxuu ku yidhi, ma anigaa garab ku siiyey? Macquul ma naqanayso, aniga wejigaaga maanta ayuu iigu horeeyaa buu ku yidhi. Markaasuu ku yidhi, ma xasuusataa wiil hadda ka hor isbitaal daba ka soo xadayay oo kalkaaliso ku dhegneed oo aad ka fujinaysay dawadii uu u baahnaa qarashaadkii ka dhiibaysay weliba adigoona waxba haysan? Ninkii wuxuu ku yidhi, haye ma xasuusataa bal aabe? Aabbihii aad ayuu iskugu noqnoqday, laakiin ugu dambayn wuu xasuustay. wuxuuna ku yidhi, haa haddeertaan ayaan 100% ku xasuustay, laakiin wallaahi alcadiim isma aanan dhihin lacagtaas qof baa kaa shubi doonto. ما كول سلاميشي إيجا إيمان دونت، لكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أي أبال كيجي كوكوزي أبال بنكسن. وهذا ولا ليال روحي قال أبال مربلو كذا ولا ليال سيداس بيتيري سومالي ده. ما شاء الله ولا ليال سيدا إذين مغتبة أيجو ولا فرحسن أي هوسبيتال كيك صبحان. الله أكبر. aad baad ugu mahadsantahay walaal daawashada aad daawatay fiidiyowga. waxaan ka codsan lahaa inaad like saarto fiidiyowga kana mid noqo walaal asxaabta ku xiran page-kayga Muhannad Habi iyo waliba YouTube channel-kayga Muhannad Habi official. waxaan ka codsan lahaa walaal inaad gaarsiiso fiidiyowgan muslimiinta kale meel walba joogaan si looga cibro qaato. barakallahu fiikum walaalayaal. من سما خلقا كريما وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول